bilaabo. Okay, tali ka waran dumarkii madaxweynuhu maanta ku yimid halkan oo kumaan dugsiisay. caawa galabta waxaa si kadisaan lagu yimid kormeer oo madaxweynaha anigu ku guda jirno shir maalmeedka caadiga ah oo shirka amniga guud oo ka wada hadlaynay habka loo xoojin karo amniga iyo wada shaqaynta bulshada madaxweynahana si kadis buu nagu yimid wuxuu maxaan ku radaa la dardaarmay saraakiisha oo howlgallada ku jirta wuuna kala dardaarmay in bulshadana lala shaqeeyo howlgalladana la xoojiyaa bulshadana dibna noo soo xasuusiyey maadaama ciidanka booliiska soomaaliyeed uu yahay hooyada ciidamada qalabka sida inaa anaga noqono tusaalihii dowladnimada intaasay tumudahay madaxweynaha uu nagala dardaarmay maanta si kadis uuna noogu yimid intaasoo shirkeena ku saabsan wuxuu dib noo soo xasuusiyey horta kow anaga inaan nahay ciidan laga soo asaasa bulshada inaan nahay hooyada ciidamada qalabka sida oo annagana laga doona inaan tusaale u noqono dhammaan ciidamada qalabka sida xasuusintana waa shay qaali oo ilaahay baa dhahay ina dakira tanfacu lmu'miniin marka shirka maanta wuxuu noogu imaan si kadisa inuu dib nagu soo xasuusiyaa aad uu noogala dardaarmay habdhaqanka iyo bulshada wuxuu sidoo kale noolaga dardaarmay inaan aad ka fogaano musuqmaasuqa iyo in tilaabo adag laga qaadi doono saraakiishii askarta lagu qabto musuqmaasuqa iyo xadgudubka bulshada arrintaasna mar labaad wuxuu xoojiyey bulshada marka fariintuu ka wada bulshada madaxweynaha uu yahay ayuu maanta nala wadaagayay waxa keenay inuu nala dardaarmo shirkana si kadis noogu imaadana taas baa horta kow ka ahayd wuxuuna aad sidaan u sheegaba noogula dardaarmay inaana lagu xadgudbin bulshada annagoo sugidda amnigana ahmiyadda koowaad siineynana in maxaan ku radaa bulshadana loo naxariisto loona fududeeyo intaa u fududeyn karno annagoo ah ciidankii naga soo aasaasay bulshada